duulimaadyadu diyaaradaha waa gaadiidka ugu degdega badan caalamka. Duulimaadyadu waxa uu bilaabmay qarnigii 18aad. Noocyada ballaaran ee loo isticmaalo diyaaradaha waxaa ka mid ah duulimaadyo madadaalo dalxiis, duulimaadyo gaadiidka dadka, duulimaadyo badeecada, duulimaadyo military iyo duulimaadyo cilmi baaris. Adduunka oo dhan, diyaaradaha waxay qaadaan 4 bilyan oo rakaab ah sanadkiiba. Sidaas darteed, daawadaha sharafta leh, halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa 10 garoon diyaaradeed ugu mashquulka badan caalamka 2025. kusoo dhawow muuqaalkeena maanta. Garoonka koowaad, Atlanta Hartsfield Jackson Airport. Garoonka caalamiga ah ee Atlanta waxaa lagu qiimeeyay gegada diyaaradaha caalamiga ah ugu mashquulka badan caalamka. Garoonkan oo leh 5.2 milyan oo kursi, waxaa kale oo uu ahaa gegada diyaaradaha ugu mashquulka badan caalamka sanadkii tagay 2024. Garoonka labaad, Dubai International Airport. Gegada caalamiga ah ee Dubai ayaa kaalinta labaad soo gashay. Garoonkan oo leh 5 milyan oo kuraas ah. Garoonka saddexaad, Tokyo International Airport. Gegada caalamiga ah ee Tokyo ayaa kaalinta saddexaad soo galay. Garoonkan oo leh 4.6 milyan oo kuraas ah. Garoonka afaraad, London Heathrow Airport. Gegada diyaaradaha ee London Heathrow ayaa kaalinta afraad soo galaya gegada diyaaradaha ugu mashquulka badan caalamka. Duulimaadka shanaad, Istanbul Airport. Gegada diyaaradaha ee Istanbul ayaa noqotay gegada shanaad ugu mashquulka badan caalamka 2025. Garoonka lixaad, Dallas Fort Worth International Airport. Gegada diyaaradaha ee Dallas ayaa noqotay gegada diyaaradaha ee lixaad ugu mashquulka badan caalamka. Garoonkaas oo leh 4.16 milyan oo kuraas ah. Garoonka toddobaad, Shanghai Pudong International Airport. Gegada diyaaradaha Shanghai ayaa soo galay kaalinta toddobaad gegada diyaaradaha ugu mashquulka badan caalamka bisha Abriil 2025. Garoonka sideedaad, Guangzhou Baiyun International Airport. Gegada diyaaradaha caalamiga ah ee Guangzhou Baiyun ayaa soo gashay kaalinta sideedaad. Garoonkan oo leh 4.14 milyan oo kursi ah. Garoonka sagaalaad, Chicago O'Hare International Airport. Gegada caalamiga ah ee Chicago O'Hare ayaa soo gashay kaalinta sagaalaad. Garoonkan oo leh 4.7 milyan oo kuraas. Garoonka ugu dambeeya, garoonka tobanaad, Denver International Airport ayaa kaalinta u dambeysa kaalinta tobanaad soo gashay. Garoonkan caalamiga ah ee Denver kaas oo qaadi kara 3.9 milyan oo kursi ah. Ugu dambeyn, haddii aad ka heshay muuqaalkan, labada asxaabtaada share dheh. Haddii aad rabto inaad daawato muuqaalo dhaadheer oo xiiso leh, fadlan nagu soo bir YouTube-kan Xigmad, subscribe saar, hana ilaamin TikTok-na follow soo dhahdo.